إسرائيل waxaan ku dhuftay 39 gantaal yaa ku ridaya gantaalka afartanaad. كتبوا من 39 صاروخ من يطلق ال40 وعلامة استفهام. waa xujadii calaamad su'aasha ahayd ee Saddam Hussein uu duldhigay madaxda Carabta kadib markii magaalooyinka Israa'iil uu ku weeraray gantaalaha Squad loo yaqaano. 18 bisha January ee sanadkii 1991 maalin uun kadib dagaalkii Khaliijka ee labaad oo Ciraaq ay la dagaalamaysay huwan ka kooban 42 dawladood oo Mareykanku horboodayo waxa uu Saddam Hussein madaxweynihii dalka Ciraaq gantaalo ku weeraray Israa'iil. xogaha qaarkood waxa ay sheegayaan in sababta keentay weerarka kan ay ahayd markii uu Saddam ka adkaysan waayay muusanowga gabadh Falastiiniyada oo Saddam ka codsatay in uu uga heliyo cadawga Yuhuudda. Saddam waxa uu si baan u duqeeyay magaalooyinka Israa'iil oo ay ugu khasaaro badnayd caasimadda Tel Aviv taasi oo ku dhuftay 26 gantaal. waxa kale oo uu weeraray magaalada Haifa iyo lama deegaanka Naqab iyo sidoo kale daanta galbeed ee la haysto. gantaaladaasi waxa ay sababeen burburkii ugu xooganaa ee in muddo ah soo gaadhay Yuhuudda. waxa dhammaan Israa'iil laga maqlay dhawaqa qalabka digniinta. dadka oo dhan waxa lagu amray in guryahooda ay ku ekaadaan isla markaana waxa lagu qasbay in daboolka sanka iyo afka ay qaataan maadaama laga cabsi qabo in Baghdad ay adeegsan karto hubka kiimikada ah. Israa'iil waa ay qarisay khasaaraha soo gaadhay laakiin 30 sano kadib ayaa ay qiratay waxyeelada gantaaluhu ay soo gaarsiiyeen. waxa ay sheegtay in 14 qof ay ku dhinteen weerarkaasi halka 10 kale ay ku dhaawacmeen. burbur lixaadlana uu soo gaadhay dhismayaasha magaalooyinka sida ay muujinayaan muuqaallo ay dhawaan warbaahinta la wadaagtay. Cabdulqaadir Cubaydi wasiirkii gaashaandhigga ee dalka Ciraaq intii u dhaxaysay 2006 ilaa 2010 waxa uu banaanka keenay siro badan oo ku qarsoon weerarka Saddam Hussein uu ku ekeeyay Israa'iil. waxa uu sheegay in weerarkaasi kadib ay Yuhuuddu ku qasbanaatay samaysashada nidaamka difaaca gantaalaha ka hortaga ee loo yaqaano Iron Dome ama ay Carabtu ugu yeedho Qubbat al-Xadiidiyya taasi oo Israa'iil ay ku kharash garaysay bilaayiin dollar. maxay Israa'iil uga jawaabi weyday weerarka Baghdad? kadib weerarkii Saddam Hussein Israa'iil ma ay qaadin wax tallaabo ah oo ay kaga jawaabayso weerarkaasi. sababo dhowr ah ayaa la sheegayaa in taasi ay gundhigu ahaayeen. tan koobaad ee kadib weerarka Saddam waxa ay dabaaldegyo ka dhaceen wadamo dhowr ah oo Carbeed sida Masar, Urdun iyo carrada Falastiin. Mareykanka oo xilligaasi hogaaminayay xulafo ka koobnayd 42 dawladood oo dagaal kala soo horjeeda Ciraaq waxa uu ka baqay in arrintani ay dib u soo noolayso qadiyadda Falastiin haddii wajiga dagaalka loo ekaysiiyo in Saddam uu helinayo Falastiiniyiinta taasina uu taageero weyn ku heli karo. sabab kalena waxay ahayd in aan la muujin inta ay gaarsiisan tahay awoodda dalka Ciraaq oo khilaaf kala dhaxeeyay dalka Iran waqtigaasina ku jirtay dagaalkii Khaliijka ee labaad. Washington waxa Israa'iil ku qasabtay in ay isxakamayso oo aanay wax jawaab ka bixin weerarka kaga imanaya dalka Ciraaq isla markaana ay qarsato dhibaatadeeda baaxadda leh. Saddam waxa uu tallaabadaasi ku kasbaday qalbiyada shucuubta Carabta waxaana golayaasha Carabta dib uga soo noolaatay lafagurka qadiyadda Falastiiniyiinta. laakiin ma laga jawaabay weydiintii Saddam ee ahayd yaa dhamaystiraya oo Israa'iil ku ridaya gantaalka afartanaad? maya 32 sano kadib dhammaan 22 dawladood ee Carabta lagama hayo cid ka jawaabta baaqa hogaamiyihii hore ee dalka Ciraaq.